Assalaamu calaykum dhammaan waa shaqaynta xiisaysa Konami ama Efootball meel walba adduunweynaha ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub halkaad iga daawanaysaan waa Yaki Boy Gamer qofka idinla hadlaayana waa saaxiibkiin waa walaalkiin Yaki Boy kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha beriyo Khamiista gameka la keeni doono ayaan kula wadaagi doonaa haddii ay noqoto bootowga oo European Championship-ka la keeni doono ama bootowga Players of the Week-da ama Worldwide-ka la keeni doono ayaan kula wadaagi doonaa intaan muuqaalkan gudaha u sii gelin saaxiib waxaan ka codsanaa inaad muuqaalkan like saarto channelkana aad subscribe dhahdo gambaleelkana aad furato si muuqaal walbo aan soo dhigo uu ku soo gaaro aad iyo aad ay u mahadsantihiin waxa aynu saarannahay wadadii aan ku tagi lahayn 6,000 oo subscribe ah intaan oo subscribe ayaa haysanaa weli haddii aadan nagu soo biir oo channelku waa channelkaaga waayahay fursadii weli way jirtaa inta soonka la gaarin haddii aynu gaarno 10,000 oo subscribe ah waxaan bixin doonaa miimaqlaysa waxaan bixin doonaa 1,040 koonis ayaan bixin doonaa laba qof oo idin ka mid ah ayaan siin doonaa 1,040 koonis shuruudaha aad ku guuleysanaysid waxaa waaye YouTube channelkan inaad subscribe dhahdo muuqaalkana aad like garayso haddii aadan muuqaalka like saarin YouTube-kan aad subscribe dhihin waxba kuma guuleysanaysid shuruudaha waxaa waaye inaad YouTube channelkan aad subscribe dhahdo muuqaalkan aad like garayso kadib commenti soo qor commentiguu doono ha ahaado aniga ayaa kaala dhaxbixi doono guuleystaa sidaas ayaad ku noqon kartaa ku guuleyso 1,040 koonis maqadeeyow haddii aadan weli subscribe noo saarin ama muuqaalkan aad like saarin nagu soo biir saaxiib meeshu waa meeshaad waayahay muuqaalkeenii ayaa gudaha usii galaynaa worldwide-ka ama botowga Players of the Week-da ayaan ku bilaabaynaa Players of the Week-da waxaa u horeeyo ninkan la yiraahdo Mohamed Salah haddii aad xasuusato isbuucan wuxuu sameeyey 2 gool aad u qurux badan ayuu dhaliyey mid gool kulaad ah iyo mid kaloo markaasi gees uu ka keenay labadaas gool ayuu dhaliyey Mohamed Salah isbuucan goolasha ugu qurux badnaa oo asaga dhaliyay waay Mohamed Salah ayaa la keeni doonaa asoo markaasi uu ku bilaabanayo 97 una gaarayo 102 ayaa la keeni doonaa Mohamed Salah wuxuu ku iman karaa qaababkan oo hadda halka ugu jeedaan ayuu ku iman karaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa Jamal Musalla haddii aad xasuusato Jamal Musalla isbuucan wuxuu dhaliyey goolkan aadka u qurux badan ayuu dhaliyey asigana waa la keeni doonaa Jamal Musalla wuxuu ku bilaabanayaa 96 wuxuuna gaarayaa 100 ayuuna gaarayaa sidoo kale Jamal Musalla markii la keeno ama waxaa la keeni doonaa Harry Kane ayaa la keeni doonaa ama Jamal Musalla beri gameka Jamal Musalla ama Harry Kane ayaa ku dhex arki doontaa labadooda laakiin lama wada keeni doono Jamal Musalla ama Harry Kane ayaa la keeni doonaa sidoo kale ninkan la yiraahdo Declan Rice asigana haddii aad xasuusto isbuucan Arsenal wuxuu u dhaliyey goolkan aadka u qurux badan ayuu markaasi u dhaliyey kulankii Arsenal 5 gool ay kaga badinaysay dhigeeda Manchester City haweenkaas goolkaas aadka u qurux badan ayuu dhaliyey asigana waa la keeni doonaa asoo markaasi uu ku bilaabanayo 96 una gaarayo 101 ayaa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa Gonzalo Ramos ayaa la keeni doonaa asagoo markaasi uu ku bilaabanayo 93 una gaarayo 97 ayaa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa daafaca Barcelona Kubasi ayaa la keeni doonaa haddii aad xasuusato kulankii Barcelona halka gool ay ku badinaysay goolkaasna uu u dhalinayay Lewandowski ninkan la yiraahdo Kubasi wuxuu sameeyey daafacashadii ugu adkeed edit ayuu sameeyey kulankaas daafacashadiisa aad iyo aad ay markaasi u fiicneed ninkan ayaa la keeni doonaa asagoo markaasi uu ku bilaabanayo 93 una gaarayo 98 ayaa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa Samuel Lino haddii aad xasuusato Samuel Lino wuxuu dhaliyey gool aad u qurux badan ayuu markaasi u dhaliyey oo markaasi boortiyeriyey xitaa markaasi uu gaari waayey ayuu dhaliyey asigana waa la keeni doonaa Samuel Lino asagoo markaasi uu ku bilaabanayo 94 una gaarayo 98 sidoo kale waxaa la keeni doonaa goalkeeper-kan ayaa la keeni doonaa asagoo markaasi uu ku bilaabanayo 92 una gaarayo 95 11 qof oo markaasi la keeni doonana waa kuwan waxaa u horeeyay Mohamed Salah iyo Jamal Musalla iyo ninkan la yiraahdo Declan Rice way badan yihiin Samuel Lino Kubasi ayay badan yihiin raggan ayaa ayaga la leeyahay 11 qof
oo beri la keeni doono waa intaas. sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa bootowga oo European Club Championship-ka ayaan kula wadaagi doonaa. European Club Championship-ka waxa uu horeeyo ninka la yiraahdo Rodrigo oo markaasi uu ku imaanayo 97 uu la gaarayo 102 ayaa la keeni doonaa. sidoo kale waxaa la keeni doonaa Ousmane Dembele oo markaasi uu ku bilaawanayo 96 uuna gaarayo 101 ayaa la keeni doonaa. sidoo kale waxaa la keeni doonaa Griezmann oo asigana markaasi uu gaarayo 95 ayuu ku bilaawanaya wuxuuna gaarayaa 100 ayuuna gaarayaa. sidoo kale waxaa la keeni doonaa Kimmich oo markaasi uu ku bilaawanayo 95 uuna gaarayo 99. sidoo kale waxaa la keeni doonaa Kovacic ayaa la keeni doonaa oo markaasi uu ku bilaawanayo 95 uuna gaarayo 100 ayaa la keeni doonaa. intaas ayaa markaasi beri gameka ku dhex arki doontaa 11 qof oo markaasi bootowga European Club Championship-kana waa kuwan raggan ayaa gameka ku dhex arki doontaa. in wax laga bedelo waa iska macquul, in sidooda markaasi lagu keenana waa iska macquul, laakiinse waxay u badan tahay 80% in sidaan lagu keeni doono oo markaasi sidaan lagu keeno oo horeeyo ninka la yiraahdo Rodrigo, ninkan la yiraahdo Dembele iyo Kovacic, Griezmann, Kimmich way badan yihiin. ragganna waxaa la leeyahay 11 qof oo bootowga European Club Championship-ka waa intaas. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. intaas ayaan jeclaystay inaan markaasi idinla wadaago. haddii muuqaalka dhammaadkiisa aad nala soo gaartay maxaa diidaya inaad muuqaalka like saarto, channelkana aad subscribe dhahdo, dambalaalkana aad furato si muuqaal walba oo aan soo dhigo uu kuu soo gaaro.